Hello asxaabta kusoo dhawaada channelka media mar kale dhammaan ardada iyo daawadayaasha cusubta waa salaamaya soo dhawaada maanta waa topic kale oo runtii aad u macaan waxaan ka hadli doonaa Facebook ads sida la wada socotaanba waxaan kasoo sheekeynayna digital marketing qaybta koowaad baan soo aragnay affiliate marketing waxaan kusoo xejinay qaybta labaad social media ahayd social media waa mid u kala qaadnay Facebook baan bilownay Facebook page si loo samaysto xaysiin si loo sameeyo waxa ka horeysa in page la sameeyo kadib pagekii waa aragnay saan usoo sameynay Facebook pagekii dhammaystiran optionka labaad qofka laga rabo markuu Facebook page samaysto waa inuu Facebook pagekaas likes u raadiyo oo isagoo si isticmaalaya paid ah organiga waa kasoo sheekeynay laakiin paidkii baan u baahanahay inaan guda galno waxaan rabaa maanta intaanan casharka u guda gelin maalmahan yara waxaa loo baahan yahay si muhiim ah ardo badan inay intay yani iga soo codsadeen inaan casharada soo duubo aan usoo dedejiyo so marka insha allah maalin walba waxaan ku dadaali doonaa under time inaan kusoo gelino wigi lasoo dhaafay xoogaa habsan yarana galay midda labaad aan rabo inaan idin xasuusiyo iyadana waxa weeye inaad channelka sii share garaysaan subscribe-na saadhaan sidoo kaleetana aad telegram channelkii kusoo bidhaan Facebook aad buu u guda ballaaran yahay runtii waxaa la oran karaa waa midda ugu ballaaran marka la joogo social media google-ka baa lala simaa laakiin si caadi ah google-ka aad buu uga guda ballaaran yahay Facebook waxaa hoos tagay Instagram sidoo kale waxaa hoos tagay Messenger waxaa sidoo kale hoos tagay WhatsApp maanta waxaan baranaynaa kaliya ah sida xaysiin loo sameeyo si xaysiintaas loo sameeyo waxa loo isticmaalayo dhammaan ugu horreyn waxaan rabaa inaan idinkaga digo dad badan waxay isticmaalaan promotion ama boost wax la yidhaahdo runtii Facebook uguma talagelin in saas loo isticmaalo markaa rabtana xaysiin samaysid intaasaa qoraysaa facebook.com/ waa idiin soo share garayn doonaa ads manager soo ma jeedaan facebook.com/ads manager kadib wuxuu kusoo saarayaa platformka xaysiinta loogu talagalay ee Facebooka xaysiinba hadda ii socota oo malaynayo xaysiimaha app kaloo ka ballaaran kan lagu sameeyaa jira isagana laakiin hadda kan baan arki doonaa qaybta tan ku arki doonaa saa la wada socotaanba ads managerku waa platform aad uga gada ballaaran waxaana hoos taga intaasoo waxood number one marka qofka waxaa laga rabaa inuu paymentiga soo saxo si uu xaysiinta u sameeyo halkaa markaas aad usoo geshid waxaad tegeysaa toolkaas kadibna billing baad tegeysaa sidoo kale billing markaad tagtid waxaad tegeysaa payment setting halkaasaa paymentigii gelinaysaa payment setting baa leedahay simbali kadibna add payment baa leedahay add payment marka taasi waa intaas qofka isagoon payment add mastercardkiisi iyo wixiisii dhan buu gelinayaa sida Facebook uu lacag kaaga goosto kadib waa soo laabanaysaa add managerkii baa kusoo laabanaysaa labadaas option waa very important aad bay muhiim u tahay inaad paymentiga soo add garaysatid si xaysiintii ay lagugu kiciyo ama lagugu sameeyo iyo tan labaad oo ah inaad tan geshid add manager okay intaa markaad soo geshid Facebook platformkiisu aad buu u habaysan yahay waxaad oranaysaa calaamadan gaduudan waa symbol create baa leedahay Facebook intaas uu kala baxaa objective waa awareness consideration and conversation business kasta oo adduunka ah saddexdaas objective buu isticmaalaa soomaalida waxaa laga yaabaa inay post to boost hal option weeye waana engagement waa arki doonaa lo engagementiga oo hal option waaye hadda way ballaariyeen isaga laftarkiisa dhowr waxood ba hoos tageen laakiin mostly waa consideration oo engagement hoos tagta sometimes conventionka waa ku arkaysaan boostiga laakiin tan keli ah waa inta badan runtii lagu arka waana ka guda ballaaran tahay topicu intaas mid walbana waxa loo isticmaalana insha allah taala waa simple brand awareness marka ganacsigaaga cusub yahay keliya aad rabtid like ma rabtid wax kale ma rabtid keliya waxaad rabtaa inaad dadka isbadhid just in magacaaga labaad reachka samaynaysaa branding labadaas la isticmaalaa markaad rabtid traffic yacni dadkii aad tusid ay action la sameeyaan traffic ugu hore waa maxay website haddaad leedahay website-gaadii aad traffic garaysid labaad waa engagementigaas waxaa noqon kartaa iyadan saddex baa loosii kala qaadaa of post engagement oo mostly inta post boostiga inta Facebook sawir lasoo dhigo kadib post boost lagu soo xiro page kii in lagu xiro iyo in eventkii la response gareeyo
course gooni ah oo Facebook oo takhasuskiisa oo dhan aan diyaarin doono insha Allah markaan waxaan dhamayno baan aad ugu sii kala arki doonaa platformsku laakiin intaan wuu ka gada ballaaran yahay oo casharka kan ku xigan ku sharaxi doonaa waxyaabaha kale ee naga maqan. Okay, innaga maanta waxaan u baahannahay objectiveka iyaga waa maxay? Waa inaan pagekii maalintii dhibitaan sameynay aan u helno like soo ma sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay inaan engagement doorano. sidoo kale waa idin wada sorry tan traffic way tanna waa confession markaad wax gadaysid badeeca gadaysid catalog baa ka mid ah store traffic baa ka mid ah iyo confession saddexdaanba aad buu adag yihiin waa kuwa ugu adag Facebook marka la joogo la sameeyo waana kuwa dadka adduunka ay isticmaalaan. Objectiveka waxaan dhan aan ka leenahay waa maxay inaan xirfad helno aan ku shaqo tagno xirfadaasna ma aha inaan 5 milyan oo Soomaalida 10 milyan oo weliba 2 milyan ay social media ka isticmaasho hadafkii waxa weeye waa entire world qofka waxaa laga rabaa inuu objective sare u yeesho. waa ka mar dhan baan xiisad dhan oo gooni ah baan u samayn doonaa online-ka sida looga shaqaysto waxyaabaha laga rabo su-aalaha u badan oo la isoo weydiiyo weeye. iyadana insha allahu tacaala markeeda u guda geli doonaa. sidoo kaleeto okay waxaan engagement hadda waxaan dooranaynaa engagement si page likes aan kadibna page likes ba sii dooranaysaa. Okay, waxa ugu horeeya sameynaysid waxa ugu horeeya saan buu kuu soo saarayaa mobile hadda isticmaalaysid ama computerka shaashadiisa aad buu ballaaran tahay waxaa laga yaabaa inuu intaan kaliya uu kuu soo saaro marka tan iska xir new page likes wataas waa ujeedaan marka waa ku dhufanayaa magaca waa ula baxayaa marka koowaad waxaan leeyahay reer mudug pagekeyga reer mudug buu ahaa first campaign Facebook page like this. I think maanta inay tahay 12 of July. aniga sababtan ugu qoranayo waxa waaye Facebook uu leeyahay platform waxa ku kala sheegay laakiin inta badan campaign si badan baan samaystaa dad badan u sameeya marka waxa laga yaabaa in ay kay dhex darsamaan kadibna save to draft waa leedahay marka campaignki marka magaca qortay halkan waa campaignki create magaca bas laakiin maxaa laga rabaa add set iyo add waa fahanteen baan u maleynayaa add set iyo add okay campaignki waa sameeyey Facebook page add setku waa maxay targetkii lacagtii wixii oo dhan marka tan baan u nimaananaa ayadana magacaan ka bedelanaa all Somalis baa leenahay xaysiinta wuxuu tusayaa dadka Soomaalida oo dhan tan waa magac bas laakiin weli waxa maana samayn si marka aan xogteedu u buuxbuuxino tan baan leenahay edit baan dooranaysaa marka ugu horeeya linkiga dooranaysaa soo dooranaysaa sorry I think personal ku dhufo waa kan reer mudug pagekaasaan dooranay budgetkayga waxaa ka dhigaynaa $5 halkaanu kaaga sheegayaa maalintii yani tan Facebook pageka aniga pagej badan baa hoostaga saasaan reer mudug doortay waxaa laga yaabaa pagejka kaleeto waxsan doorto iyadana waxaa laga rabaa halka kan page likes $5 baan doortay xilligu bilaabaya iyo xilligu dhammaynayo any date waa u yeeli kartaa haddaad rabtid maalin baan ka dhigay ama any date kaga daana hadha automatic u xiraya like uma darnaado sidoo kaleeto tan iga xir good waxaa kuu soo hartay waxaan soo dooranay pagekii marka labaad waxaan saxnaa lacagtii halkaana kuu soo hartay locationka hadda Ukraine buu dooran yahay waa bedelanaa symbol way edit baa leedahay wax kala taaban mayno Soomaaliya dooranaysaa halkaas Soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka ugu fiican ee Facebook xaysiin laga sameeyo haddaysan 5 ahayn waa dalka 6 ama dalka 7 ee ugu raqiisan xagga lacagta Facebook Mareykanka ugu qaalisan Ingiriiska ku xiga halka like waxaa laga yaabaa inuu ku charge gareeyo iyadoo ku xiran tahay waxa sameynaysid mar walba de Facebook platformka hadii laga rabo oo shaqadaada lagu shaqaaleysiisanayo waxay tahay inaad likes raqiis oo dadka raqiis u ah inaad u keentid okay likeski marka halkaas waxaan targetkii waxaan waa aragtay ma post uu leeyahay laakiin sideedaan u deynanaa waxa target kale ku sii xirmayno okay waxyaabaha kale oo platformkan cajaa'ibka uu ku yahay waxaa kamid ah placementiga automatic placement baan ku sameeyaa mise manual yani xaysiintaada xagee ka muuqanaysaa haddaad manual dooratid intaa oo meelood baa xaysiintaada ka muuqanaysaa Facebook kaliya waa page likes maadaama page likes yahay
horta marka koowaad Instagram ka muuqan mayso platformkan wuxuu awood kuu siinayaa in xaysiinta Facebook ka kicisay Instagram aad ka kicin kartid laakiin maadaama page like ay tahay hadda Instagramka waa in active weeye laakiin hadda objective ka bedelno saddexdan ba active ay noqonayaan okay Facebookii uguma saharin waa Facebookii kuu dhahaya newsfeedkii waa feediska oo caadiga postiga caadiga newsfeediskana waa taqaanaan Facebook marketplace-ka iyadana waa xaysiimaha wixii halkaa kaaga soo baxa Facebook page-ka markuu halkaas waxyaabaha kaaga soo baxa sidoo kaleeto artikalada iyo gruubyada intaba isna wuu kaa tusayaa okay annaga waxaan leenahay marka recommend automatics ka dheh maadaama Facebook page like ka tahay bes halka kan waxaan ka saxnay marka la haddaan xasuusiyo pagekan dooranay budgetkan saxnay targetkii baan saxnay haddana placementigii ad placementigii baan iyadana saxnay waa ka gudbanaa waxaan u gudbanaa new page laakiin si kale haddaan dhahdo halkan kasal iraahdo marka campaign kaas magaciisa soo saxay marka labaad ad setka all Somalis marka saddexaad kan u dambaysa waa ad creativity dadka maxaa la tusayaa yani shayga dadka ay like ta saarayaan oo la tusaya waa maxay halkaa ku qor funny picture isaga qor magacaan marka waad magacyadan bedeshaa kadibna xogtaan bedelaa draft kadibna edit de markaan wax kale kaliya dheh funny picture marka tiraahdo waxa ugu soo horeeya halkan page-kaaga buu ku tusayaa kadib waxaa gelinaysaa ad creativity baa leedahay ad creativity waa maxay waa inaad sawir iyo dadkii waxa tusi lahayd meesha la timaadid option badan buu dadku siinayaa sometimes hadaa ad media tirahdid waxaa laga ad image tiraahdo page-kaaga ama page kaleeto ku dhow buu ku tusayaa marka sawir baa jira iska funny ah aan rabay inaan sameeyo kanfada iyadii inagu celiya kanfa waa leedahay create design baa leedahay waxaa leedahay Facebook ad baa leedahay waa ujeedaan baa umaleynayaa Facebook ad buu ku saaraya adka Facebooka markuu muuqanayo subtu u muuqan lahaa sizekiisa waa automatic kadib halkaas waxaa leedahay magac igu samee reer mudug igu samee kadib soo upload garee sawir baa jiray ayaa samaystay devices isoo upload garee kadibna template-ka igu celi template-ka mid kuwan iga door wuxuun maxamedoon iga door waa iska sambal laba waxood baa muhiima in loogadeediina ay ka dhex muuqato qoraalna aan u yeeli karo sawirkaas dhabkaas bad baa ka dhex jirta okay wait me a minuto waxaan oo dhan iga tirtir pictureka ii soo qaad picturekaanaan rabaa aad u ballaari ilaa iyo meesha u dambeysa gaarsii okay halkaa loogadeeda saar logos kadib t iska taaba haddaa rabto inaan qoraal qodhaan t baa la taabtaa mostly reer mudug reer mudug ayaa yidhi baa leedahay qoraalka la soo leeyahay sidoo kale qoraalka effect u yeel dhac nab nab okay halkaana qoraalka la kusii qor
هذا فرع قلاء قلاء أمانك مدق. ير عندنا element tag موجي حوالو بهاي هاي موجي ده واحد رقاقة مرة بنا انت بدن قف كان واحد لقيا با انا اسنا حرمة لي هاي ساس درادت. اوكي انا نقريا اسكو ديا اما ما مid kale hadaan dul saaro kaga haboon laakiin iska daa dhima laha taasaan kusoo gebagabeynanaa golaha ammaanka waxaa muhiima mar walba wax dadka soo jeedanaya inaad dadka tustid kan kalarka iga bedel waxaan ka dhigayaa maadaama kalarka iyagu loogada iyada halkaas ka fiiri marka derbiga gee tana soo badi hal mara kaleeto ku laabo kalarka kan miyaa kusoo baxaya mise kan mise kan mise kiisii hore mise kan I think jaalaha ugu fiican laakiin jaalahu loogadaas soo saareen nope nope yeah waa kan I like that pink color sababta hawadaas u egya meeshaas marka dhaaluudhe kadibna saan soo dheh wuu degayaa markuu soo dego meesheedu inagu soo celi show and folder iska qabdhe gadaalkaas ii soo dhig ka soco add media dheh add image dheh upload dheh taas sawirkii kadibna soo gal kadib saanoo kugu sameynaya qofkana halkaa like saaro saa kugu saaro halkan primary text baa ku qoraysaa halkaas waxaa leedahay basal iyo qaraaxo nala soco and then you say publish waa publish garaynaysaa ereygan publish baa leedahay marka publish tiraadid Facebook wuxuu sameynaya review waxaa soo saadhay inuu policy uu Facebook leeyahay inta waa caqabadaha ugu badan ee Soomaalida qabsata weeye policygaas ay aad u jabiyaan marka policygaas uu check garaynaya markuu check garay kadib hadduu faaca waxaa laga yaabaa xaysiinta kugu horeysa 24 marka u baahata qaadato laakiin 6 hours 7 hours kadib inay hawada gasho marka waxaa muhiim ah qaabkaas inaad u samaysatid picture dadka soo jeedanaya loogadaadii wata hadda review wadaa haddaad halkan aragta in review waana page likes campaign guud haddaad si fiican u fatay in draft in review wakan markuu reviewgaas dhameeyo buu wuxuu sameynayaa insha allahu tacaala buu publish garaynayaa cashirkana maanta intaanu ku kooban yahay waxaa muhiim ah haddaan review siiyo qofka inuu page Facebook page samaysto markaa kadibna uu like raadiyo in ad managerka la isticmaalo topicgaygu waa intaas wixii su-aalaha noodka igu reeba ha ilaawinina inaa subscribe garaysaan janaalka aada u mahadsantihiin
Asalaamu calaykum.